iyadoo dhawaanahan baa qaar ka mid ah gobolada dalka Jarmalka ay ka socotay doorashada gobolada ayaa gobolka Heesan ee bartamaha dalka Jarmalka maalinnimadii shalay ee Axadda dadweynaha gobolkaasi u dareereen dhiibashada codadka mudanayaasha 5 sano ee soo socda u metelaya baarlamaanka gobolka. Doorashadan oo ahayd mid aad u adag ayaa kala reebtay xisbiyada iyo musharaxiinta u tartamaya doorashada, waxaana taariikhda markii ugu horeysay xubnaha baarlamaanka gobolka ka mid noqonaya xisbiga midigta fog ee AFD oo helay codad aad u tiro badan, sidoo kalena xisbiga Grune ayaa keenay codad aad u sareeya marka loo eego doorashadii 5 sano ka hor ka dhacday gobolka. Dhanka kale, xisbiyada waaweyn ee CDU iyo SPD ayaa markii ugu horeysay guuldarro taariikhi ah kala kulmay codadka gobolka. Xaliimo Guutaale oo ah haweeney Soomaaliyeed oo ka tirsan xisbiga SPD ayaan wax ka weydiinay doorashadani waxay kaga duwan tahay doorashooyinkii hore gobolka ka dhici jiray iyo saameynta bulshooyinka muhaajiriinta ee Soomaalidu ka mid tahay ay ku yeelan karto doorashadani. doorashooyinkii hore waxay kaga duwan tahay sanadkan waxaa tartamaya 23 ururood ilaa 800 qofood oo u tartamaya baarlamaanka gobolkeenan. waxaa ku jira ay kaga duwan tahay urur cunsuri ah oo hadda ku soo kordhay xagga siyaasadda qaxootiga ka soo horjeeda ee dhibaatooyin u keenay ururadii kaleeto ee jiray ee sida social democratic iyo kan CDU uga leeyahay ee hadda gobolkan haysta maadaama ay ururkaas uu jiro una yahay hadda gobolo badan uu soo galay gobolka kaliya ka haray ee yahay gobolkeenan Heesan uusan weli ku jirin. dhibaato weyn ayay keentay sababtoo codadkii ayuu wuxuu ka qaatay ururadii waaweynaa ee hore u jiray. saas daraadeed waxay tahay mid aan anaga cabsi ka qabno inuu soo galayo, laakiin sida reality-ga ah uu soo galayo taas waa hubaal inuu soo galayo. su'aasha taariikh kaliya waxay tahay meeqa % ayuu helayaa iyo inta kursi uu ka helayo baarlamaanka iyo sidee looga hortagi karaa. waana sababaha aan nagu kaliftay inaan xoogi iyo dadaalkii aan wadnay urur ahaan aan sii badino. markaynu eegno dhibaatada Soomaalida haysata waxaa jira in la yiri ma aqoonsanin dhalashadiina, ma ogin inaad Soomaaliya ku dhalateen, caruurihiina dhalasho siin mayno, dhibaatooyin badan oo noocaasi dadka halkan isku guursada aanay maxay warqad caadi oo register-iga dawladda aanay heli karin oo cadeynaysa inay isqabaan. markay sidaa tahay haddana muddada dhibaatooyinkan yimaadeen CDU ugu hayay ma loo aanay karaa dhibaatadan in xisbiga CDU uu dabada ka riixayo uu ka riixayo uu la taagan yahay sababtoo ah waxa taagan waxay tahay anigu waxaan ku jiray yarka aadan nala fadhiyana waa kana ku jiro waxaan ahayn dadkii ka soo horjeeday ee u dagaalamay in Soomaalida ay ka qayb qaataan la siiyo xataa ugu yaraan inay luqadda baran karaan. dadku u dagaalamay ilaahay waa nugu taakuleeyay sabab gareey in annaga naloo ogolaado Soomaali haddaynu nahay dalkan Jarmalka inaan luqadda naloo ogolaado. dadka annaga abaabulay aniga iyo aadan nala fadhiyo halkan ka mid ahayn kastana taageertay in ururka halkan jooga ee halkan haysta intuu haysto waxyaabahaas ma helayno sababtoo waa dad aaminsan waxyaabahaas oo dhan inay tahay in halkan siday leeyihiin Jarmalka si shahay in nabadooda inay ku sugan tahay. nabadooda kuma sugna qof oo wax laga reebtay ee masaakiin ah. nabadooda waxay ku sugan tahay waa qofka waa inaan anagu ilaan bombada meel ku qaraxaysa ama qofka waxa leeyahay anagu dhan oo wada dilaya oo dhiimaayo qofkan waa islaam, qofkan waa Soomaali, qofkan waa wax kale ka siitaa. waa waxay yiraahdaan populist dadka meelaha dadka waxay maqanayaan oo qabowda maqashii waxunaha u qaban qowda lama qasiinay taasi hadda waa hadalkii doqonka loo sheegay qofkii ka yeelaya asigay u talaa. waa horta anagu markaan nahay Soomaali dad yar aynu nahay horta sidooda codkooda awood leh inay cod dhiibtaan. kastay sir ee codka dhiibanaya ee halka meelaha anaga gaar ahaan xaafadaheena jooga ee aan aqaano waxay sharciga haysan ku heleen waa SPD-ga daraadiisa. haddayna ayagu jiri lahayn maysan heleen. qofku horta inuu xisaabtamo yiraahdo anaga ururkan tirsanay kaba saaray horta waa inaan xisaabtamo anigu yaan ahay halkee baan ka imid maxaan u baahanahay baahideen waa sidee. Zakariya Sheekh Maxamed, SAB TV, wararka dalka Jarmalka.